dab ka kacay goob lagu iibinayay shidaalka noocyadiisa kala duwan oo ku yaala degmada Shilaabo ayaa khasaare dhaawac iyo mid hantiyeedba geystay. hantida goobtani ku burburtay ayaa iskugu jirtay 1,650,000 bir oo cadaan ah iyo 3,150,000 bir oo ahayd hantida shidaalka ah ee taalay goobtan iyo 6,200,000 oo milyan oo ahayd hantida dadka kale ee ka agdhawaa goobta uu dabka uu ka kacay. goobtan oo ahayd goob weyn oo lagu iibiyo shidaalka noocyadiisa kala duwan ayaa abaar 8 subaxnimo ee saaka waxa ka kacay dab uu dhaliyay matoor loo adeegsanayay kala wareejinta shidaalka oo booyad laga dejinayay. haddaba mar aanu goobtaasi gaarnay ayaa waxa indhahanagu ay qabanayeen gebi ahaanba goobtii shidaalkaasi lagu iibinayay oo isla basbeeshay iyo goobaha dariska la ah oo ayaguna waxyeelo ba'an soo gaadhay. geesta kale waxa ay waxyeelo ay soo gaadhay darawalkii booyada shidaalka waday iyo caawiyihiisii oo dhaawac daran ah isla markaana loo gudbiyay cusbitaalka magaalada Qabridahar, halka 7 qof oo kale oo dhaawac sahlan soo gaadhay oo u badnaa ciidanka booliska gaarka ah ee dowladdeegaanka Soomaalida oo ka qayb qaadanayay daminta dabka ay haatan xaaladooda lagu dabiibayo xarunta caafimaadka ee degmada Shilaabo. odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan degmada Shilaabo ayaa sheegay in hanti badan ay ku burburtay goobtani, cadeeyana haddii la heli lahaa dabdamis degdeg ah wax laga qaban lahaa dabkan. dowladana ka codsaday in loo sameeyo degmada Shilaabo dabdamis. haddaba waa kan taliyaha booliska degmada Shilaabo Shambala Abi God Abdi oo ka warbixinaya khasaaraha halkan ka dhacay. anigu waxaan ahay taliyihii booliska Shilaabo, magacaygana waxaa la yidhaahdaa Shambal Abi God Abdi. maanta taariikhdu tahay 9 bishii 7 2013 waxaa ka dhacay dab khatar Shilaabo, degmada Shilaabo. dabkaas wuxuu ka kacay kaalin shidaal oo ku taala degmada. kaalinta waxaa la nin la yidhaaho Ali Farxaan oo reer Shilaabo ah. dabkaas waxaa ka dhashay khasaare aad iyo aad u fara badan oo guryo leh, oo shidaal leh, oo lacag cadaan leh, oo dhaawac dad leh. dadka dhaawacmay ee dabka ku dhaawacmay tiradoodu waxa weeye 13 ruux. 13ka hal waa dumar, 12 waa rag. kulli 3 kamid ah waa dhaawac culus oo waxa loo qaaday Qabridahar. kulli xaaladooduna hadda wali waa inay dhakhtar ku jiraan baa naloo sheegay. xaaladda kale ee khasaaraha ee soo gaadhay 12 guri waa la dumiyay iyadoo lagala cararayo dabka ayaa la dumiyay. 2 guri oo kuwii dabku uu ka dhashay ah oo bakhaarkii kaalinta ahaa way gubteen. 2 maqsina oo waaweyn. hanti marka aad iyo aad u fara badan. 12 guri oo isugu jiray kuwa dukaama, kuwa charjilayaala, kuwa gobada ganacsi. 12 guri ee la dumiyay oo hantidoodii suuqa la waday iyagina la dumiyay. waxay ahayn 12 goobood oo lagu ganacsado. 2 gurina way gubteen oo kuwa shidaalku uu ka qarxay bay ahaayeen. marka qiyaas ahaan marka aan qiyaasno xogta dhabteehan soo ururnay waxa weeye 12 guri iyo hantida gaarka ah ee shakhsiga gaarka meeshii dabku ka kacay ee bakhaarkii shidaalku uu yaalay ahaa waxaa lagu qiimeeyay 4,800,000 kaalinta shidaalka iyo wixii yaalay ammaano ahaa. guryaha la dumiyay 6,200,000 ayaa lagu qiimeeyay. khasaaraha marka maanta dabka ka dhashay intaas 11 milyan ayaa lagu qiimeeyay.